حقيقة هذين aynu isdul taagno oo aqoontan iyo cilmigeena aynu adeegsano reer beledweyne oo ma baahna bariis saana misanahay war sidaynu calool wax ugu qiimeynayna iyo maanta maxaynu cunaabayno adduunka ka hadhnay war waxa aynu ururinayna ee malaayiinta reer beledweyne ha lagaga awdo buundada oo maxaan ku dhahdaayay hala sameeyo dadka dawladaha caawinayo oo bariiska noo keenay war aanu bariis ma rabno sidaynu ognahay fatahaadaha ka dhacay iyo dhibaatooyinka dabiiciga ah ee wadankeena ka dhaca waa dhibaatooyin isku soo laalaabtay oo runtii aad u jira badan saynu ognahayna oo aynu nahay dad islaam ah rasuulka Kallaahi salaatu wasalaam wuxuu yiri qofka muslimka ah god laba jeer laga ma wada qaniino inaynu sanad walba gurmano oo sanad walba aynu ooyno oo sanad walba meeshaynu ku gubanay haddana sanadku xiga farta la aadno runtii waxay u baahan tahay aqliyad laga gudbay u baahan tahay dhaqaale badan baa la aruuriyay Soomaaliya meeshay joogto qof Soomaali jooga uu ka kacay taasi waa caan baynu ku nahay inaynu isu gurmano caan baynu ku nahay laakiin waxaynu kala aynu caan ku nahay wax la yiraahdo laab la kaca dawladii dhexe ee dhisnayd ee quwadda lahayd ee la oran jiray libaaxi Afrika laab la kaca baa lagu dumiyay bilaa qorshe ah sidoo kalena hadda waxa jira gurmadyo qaran oo loo ooynayo oo loo dhibaatoonayo laakiin bilaa qorshe ah waxaynu waxyaalo badan ay u eeg yihiin inaynu nahay dad qol mugdi wax ku tuuraya sababtu maxay tahay xaqiiqda hadaynu aynu isdul taagno oo aqoontan iyo cilmigeena aynu adeegsano reer beledweyne oo ma baahna bariis saana misanahay war sidaynu calool wax ugu qiimeynayna iyo maanta maxaynu cunaabayno adduunka ka hadhnay war waxa aynu ururinayna ee malaayiinta reer beledweyne ha lagaga awdo buundada oo maxaan ku dhahdaayay hala sameeyo dadka dawladaha caawinayo oo bariiska noo keenay war aanu bariis ma rabno bariis ma rabno anaga bariiska la soo baxayna dhar ma rabno anaga samaysanayna fadlan hana laga xiro wabiga fadlan waxaan u baahanahay dawladda federaalku lacagta badan ee hantida loo ururiyo beledweyne fadlan ha loo sameeyo mashruuc weyn oo lagu awdaayo ama lagu leexinayo wabigaas lagu xalinayo maalin kasta inaynu oyno ma xamili karno يعني waxaan u baahnahay qorshe inta ka balaaran aqoon yahanin baynu nahay adduun casri maynu marayna 2019 adduunku wuxuu marayaa heer dib aan jirin intuu abuuro sidoo ku xalin lahaa uu si diyaariyo aqliyan muxuu keenay waa intaan xoogeeni awoodeeni dawladnimadeeni wixii nagu caawinayaba intaan isku geyno war inaynu biyahan leexino hadii aynan xiri karin calaqan ila leexiyo reer beledweyne waxay u baahan yihiin ayagoo degan oo wabiguna uu soo fatihin walaalayaal in la caawiyo u baahan yihiin إلا عاويو بهايهن قرمت كنا نعاوننا يحقنا نبحنا يدتك مساكين توحنا كسو قاضينا أن اسكو جيننا ولا ليالو دبعت هذا الصحة أهميش كتر تهلقيو قضب كلا بعض إنه ولا لهم عاونوا واجب نبكي وضع هذا حل كيدينا محنكر هذا وحل كذا عن شيءنا أو إنه وبيقال الحرة أنت سكدي وحنربا قرمت قراني كسو شقي وحنربا إن حلقة سيرة لو وذاقو سيدتك الصومالية دا isku damiirka u yihiin isku dadnimada u yihiin isku walaalaha u yihiin runtiina sida hore loo sheegay waxa kaliya Soomaaliya ku badbaaday tahay waxaan aaminsanahay hadii dawlad gaala ah oo maxaan ku raadada diin islaam iyo dhaqankan haysanaan dhibaatooyinka Soomaaliya ay ka soo gudubtay kama soo gudbi kareen runtii way dhamaan lahaayeen anaga waxa way isku kornool lahay maxaan ku raadada alxamdulillah rabbil alamin ilaahay baa mahad iskale hadda ka waxaan ka soo shaqeynaa anaga gurmad qaran baa ka soo shaqeynay marka waxa dhacday subax anaga ku jirna suuq la dhahay injida oo ku yaala magaalada Garowe على سيدي بوحان سوق لسان هويدا Soomaaliyeed kun ka shilinay rabtay adeeg inuu u soo iibsato aan uga qaadna xuso istaagnay banaanka marka sa ogtihiin dad masaakiina oo cuuriyana ayaa waxay fadhiistaan suuqa iridkiisa aniga waxa soo istaagay nin cuuriyana albaabka dhinacan ka fadhiya aniga dhinacan ka istaagay hooyo kasta oo soo gashay qof kasta soo galo waxaan dhahay walaal kun ka shilin keen qof walaalka maanta yaanyada maanta maxaan ku raadin basbaaska ka tag maanta yaanyada ka tag hal qof baan kin ugu gadeynaa qanajibiya sidii aan lacagta ku ururinay ninkan halkan wasna lacagta qofkii soo baxay lacag u siinayay markii aan dhaqaaqi rabay buu ii wacay marka waxaan isdhahay wuxuu ku dhiirabaa walaalay waxaad maanta dhan ururinaysay isii ilaa wixii ana meesh maxaan ku raadada waliga firisan jiray wixii wallahi wax aan ka yaabay oo mucjisay ugu noqotay waxay ahayd ninkii maanta dhan asna inuu ila ururinay oo wuxuu ururiyay ku riday bacdaan waday waa curiyaan meesha fadhiyay taas waxaan tusaysaa dareenkeena saxda ah iyo sida aan u rabnay inaan dalkeena dadkeena caawino balse ma doonayno laab la kac wax badan naga badbaadiyay qiiro aan geedka gaarsiisnay war reer beledweyne oo hin uma bahna ee muruq biyaha laga celiyo baahan yihiin aqli biyaha laga awday u baahan yihiin dhibaatada lagu badbaadiyo reer beledweyne haday biyahan ka joogsadaan inta bariis uga baahna oo iyaga dhulkii beeraha laha jooga war beerahooda qoranayaan oo dhulkooda qodanayaan